waxyaabaha dabiiciga ah ee bii'ada ku saabsanna waxaa loo isticmaalaa maadooyin iyo waxyaabo kale oo kala duwan. maadooyinkan kala duwan waxa ay leeyihiin waxyaabo iyaga u khaas ah oo kala duwan, si degan ayay u shaqeeyaan, waxayna leeyihiin muuqaal qurux badan iyo qaab dhismeed xoog leh. intaana waxaa u sii dheer inay mar walba isbeddel sameeyaan. mid kasta oo ka mid ah waxyaabahani waxa ay mudan yihiin inay tusaale u noqoto in lagu sameeyo baaritaan oo dhanka tiknoolajiyadda ah. marka aan soo qaadanno maadada loo yaqaano siramiga, maadada siramiga waxa ay ka mid tahay waxyaabaha la isticmaalo maalin walba, midaas oo door weyn ka ciyaarta nolosha insaanka, laga soo bilaabo doorka dhismaha ilaa iyo laga soo gaaro doorka korontada. soo saaridda maadadan siramiga waxa ay u baahan tahay heerkul gaaraya 1000 ilaa 1500 darajada heerkulka. hase ahaatee waxaa jira waxyaabo dabiici ah oo laga sameeyo maadada siramiga, waana walxaha qolofta adag ee laga helo badda. waxyaabahaasi laga soo saaro siramiga waxa ay u baahan yihiin oo qurax 4 darajo oo heerkulka ah. arrintani waxaa daaha ka qaadaya caalimka Turkiga ee loo yaqaano Ilham Aksay. Aksay waxa uu baaritaan ku sameeyay walxahani qolofta adag ee laga helo badda, gaar ahaan noolabadeedka loo yaqaano abaloni. noolahani abaloniga loo yaqaano ayaa waxa uu leeyahay qolof aad u adag, waxa ayna in badan ka adag tahay midda caadiga ah ee la soo saaro. Aksay sharaxaad ayuu ka bixiyay markii uu baaritaanka uu sameynayay, waxa uuna yiri kadib markii lagu eegay mikroskoob awood iftiimeed gaaraysa leh 300,000 oo jeer, waxa uuna ka kooban yahay dhoobo leh borotiin, kaarboon iyo calcium. dhismaha gidaaradiisana waxa uu ka samaysan yahay dabaqyo oo mid waliba xajmigiisa uu yahay mid caqliga ka weyn, aadna uga adag yahay siramiga uu insaanka soo saaro. Aksay waxa uu isticmaalay maadadani inuu ka soo saaro maado aad u adag, taasoo ah siramig aluminum ah, waxaana loo isticmaalaa difaaca dabaabadaha. maadooyinkani insaanka uu soo saaro inta badan waa ay jabaan, waxaana markaasi adkaata in shaygaasi jabay oo sidii uu ahaa lagu soo celiyo kadib markii la sameeyo isku dayo badan. hase yeeshee markii aan maadadan soo qaadanno waxa ay leedahay nidaam makaaniig ah oo cajiib ah, isla markaana ay is-cusboonaysiinayaan qudhooda marka ay duugoobaan. culimada isha ku haysay maadooyinkani waxa ay soo saareen maadooyin suuragelinaysa siramiga insaanka soo saara isaga qudhiisa is-cusboonaysiiya. si kasta oo insaanka u dadaalo, tiknoolajiyad kastana uu adeegsado, cilmi baaris kastana uu sameeyo, ilaahay awooddiisa wax gaaraya ma jiraan.